بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelka Dacad Graphics إن شاء الله muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa wax loo yaqaano outer frame frame waxa weeye markaasi muuqaaladu sidaynu naqaano waxay leeyihiin frame-yada marka sida muuqaalka loo soo saaray waxaan doonaynaa muuqaalkan sidii loo soo saaray si aan ahayn inaan u dhigno tusaale muuqaal baa wuxuu ahaa landscape buu ahaa oo saas ayuu jiifay muuqaalka waxaanu ka dhignaa square waxaanu ka dhignaa afartiisa dhinacba inaan isleekaysiino amaba sidoo kale waxaanu ka dhigi doonaa vertical oo muuqaalkaasi waxaanu u dheerin doonaa kor ayaan u dheerin doonaa ilaa iyo markaa shaashada telefoonkaaga inaan leekaysiino sida muuqaalada loogu talagalay waxaa jira muuqaalo u gaar ah in lasoo geliyo YouTube oo aan loogu talagelin in lasoo geliyo Facebook kadib Facebook marka lasoo geliyo muuqaalku noqonayo muuqaal aan markaasi si habboon ugu soo baxaynin device-ka ama aaladda loogu talagalay haddaba waxa kale oo jira muuqaalo loogu talagalay in lasoo geliyo maxaa la yidhahdaa Facebook oo aan markaad YouTube ka daawanayso noqonayo muuqaalo foolxun sidoo kale waxaa jira muuqaalada sida xayeysiisyada commercialka oo kale markaad samaynaysid waa inaad u samaysid marka qofka customerka sidoo kaa codsado tusaale hadduu soo dhigayo 30 second oo loogu talagalay in historyga Instagram lasoo dhigo amaba statuska WhatsAppki Facebook lasoo geliyo ama historyga kala duwan ee social media haddaba sidee baad u samayn doontaa frameka aad muuqaal hore u jiray sidee baad frameka ku bedeli doontaa wayna isla arki doonaa sida markaasi muuqaaladaasi framekooda loo sameeyo laakiin bal waxaynu isla eegi doonaa muuqaalo hore oo jiray inaynu frameka ka bedelno ugu horreyn waxaynu isla tegi doonaa Adobe Premiere Pro 2020 oo ah softwareka aynu ku edit garaynayno markaasi muuqaalkan waxaynu isla nimi Adobe Premiere Pro baan isla nimi marka waxaan doonaynaa muuqaalkii aynu doonaynay inaan frame ku sameyno ah muuqaal full HD ah oo markaasi qaabka landscape u duuban ee loogu talagalay YouTube-ka muuqaalkan waxaan kasoo dejiyay YouTube waayahay aynu isla eegna markaasi ugu horreyn aan soo import garayo muuqaalkii waxaan taabanayaa laba click baan import media ayaan ku sameynaya dadna waxaan soo qaadanaya marka muuqaalkii oo kan ah ayaan soo qaadanaya waayahay muuqaalka xaggan buu yimi qaybta project dadna waxaan geeyaa qaybta timeline-kiga ayaan u soo kaxaynaya markaasi muuqaalkii waxaad aragtaan muuqaalkan yahay muuqaal sidaasi ku saxsan oo ah muuqaalkii loo soo gelinayo YouTube haddaba waxaan rabaa muuqaalkan inta horena markaa ayaan rabaa maadaama markaas softwareku uu duubi doono outer frame ku sameynaysid intaa yar ayaynu markaa baynu markaa ku samayn doonaa inaan frameka ka bedelno waan aragnaa qaabka markaasi uu muuqaalku ku yaalo waxaan doonayaa ugu horreyn inaan square ka dhigo afartiis dhinac soo leekaysiyo ugu horreyn waxaan imanayaa markaasi halkaas sare ay ku qoran tahay sequence marka mada hoos baan soo kacayaa ilaa halkaa ay ku qoran tahay markaasi outer frame sequence halkaa markaa ku dhufta markaa xagga waxay soo baxaan sequence namekii oo magaciibu haystaa yacni video ama muuqaalka ayuu haystaa xaggan ku xigta waxaa ku qoran markaasi square waxa weeye qaybta u horreysa oo video waxa laga dhigaa 1 by 1 baa laga dhigaa yacni oo muuqaalkayga hore hadduu ahaa markaasi xaggan hadduu xagga widthka u ahaa markaasi 1920 xagga kalena uu ahaa 1080 imika waxaa lagu samayn doonaa waxaa laga dhigi doonaa 1080 by 1080 baa laga dhigi doonaa labada dhan baa la isleekaysiinaya marka qaabkaas u horreeya baan doonaya inaan isticmaalo wax kale kuma bedelayo marka waxaan ku sameynaya markaasi create baan taabanaya waayo waa lay analyze garaynaya intaas markay dhamaato markaa videoga baad aragtaa inuu afarta dhinac marka isku leekaan doono inta analyze markay dhamaato muuqaalkaygii sidii saxda ahayd wuxuu ii noqon doonaa markaa in afar gees laga dhigo ama afarta dhinac lasoo leekaysiiyo kadib doono aaladda markaasi Facebook markaasi una qofku markuu daawanayo si qurux badan uu uga soo bixi doono waayahay analysis baa laga dhameeyay muuqaalkii marka haddaan shido waayahay imika framekan wuxuu leeyahay markaa framekii Facebook weeye waay hal mar baan dib uga noqonayaa waxaan doonayaa markaasi mid kor ah oo qaabka historyga ama verticalka mar u sameeyo
sidoo kale sequence baan imanaya kadibna waxaan imanaya outer frame baan imanaya outer frame markaan imaadana xaggaasna vertical baan ka dhigi doonaa kadibna create ayaan dooran doonaa sidoo kale analysis baan laga samayn doonaa haddana markaa muuqaalkii waxaa lagu sii dayn doonaa oo loogu samayn doonaa markaasi qaabkaas verticalka oo aan soo gashan doono markaasi statuskayga Facebook ama historyga Facebook iyo statuskayga WhatsApp iyo Instagram iyo kuwaabaha kala duwan ayaan soo leegisan doonaa okay haddana aan isla daawano muuqaalkan markaa bal siduu kusoo baxo waad aragtaan muuqaalkii markaas wuxuu noqonayaa muuqaal si qurux badan ugu raaxaysan doono qofka markaasi ka daawanaya statuskaaga si dhammaystiran ugu soo bixi doono fadlan hadday tahay markii koobaad soo booqday channelkan subscribe like iyo share notaw casharkan halkaa inoogu joogo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu